afar nolosha aan ku qabanay iyo hubkooda iyo qoryaxooda iyo raashinkooda iyo shidaalkooda Soomaaliya oo hadda ayamahan dambe oo kooxda hadda waxa lagu tilmaamay hogaamiye kooxeed inuu Muqdisho ka soo baxay. Jubbaland oo soo bandhigtay xubno la sheegay inay qalqal amni ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo. muuqaaliya cadeema ayaad wararkeena ku daawan doontaan. warar kale aan idin heynana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay inuu qayb ka yahay horinta colaadda ka taagan xilligan gobolka Gedo. haddaba maxay tahay sababta macluumaadkaas oo faahfaahsan iyo waxaa kale oo wararkeena aan ku soo qaadan doonaa Jubbaland oo sheegtay in dalka ay la wareegeen hogaamiye kooxeed. warar kale aan idin heynana waxaa ka mid ah Jubbaland oo isku diyaarinaysa in ciidamo ay u dirto gobolka Gedo xilli maalmihii ugu dambeeyay dowladda ay qaadaysay tilaabooyin culus. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad wararkeena ku daawan doontaan. balse saaxiibayaal waxaad ka codsanayna subscribe sartaan channelka Galka Media si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino. maasanadiin dhammaantiin baa inuu ku bilowno. wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ku waramayaan in shakhsiyaad falal amni darro ah ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana la sheegay inay soo abaabushay villa Soomaaliya ay isku dhiibeen maamulka Jubbaland. war lagu baahiyay telefishinka maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay Abshakuur Ahmed Ali oo kamid ah xubno mucaarad ah oo laga soo abaabulay villa Soomaaliya ayaa markii uu adkeysan waayay falalka sharciga balmarsan ee dowladda federaalka ee ka wada Jubbaland isku soo dhiibay laamaha amniga ee maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa Dooble ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay maamulka Jubbaland. Abdishakuur Farso ayaa qaatay go'aan ah inuu dib ugu soo laabto dadkiisa iyo deegaankiisa waxaana isla markaana hub sharci darro ah oo la doonayo in lagu qalqaliyo deegaanada Jubbaland ay ku haysteen deegaan u dhow degmada Dooble uu ku wareejiyay hay'adaha ammaanka ee maamulka Dooble. waxaa sidoo kale la sheegay in magaalada Kismaayo lagu qabtay rag loo diyaariyay inay qalqal amni ay ka sameeyaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana Jubbaland ay soo bandhigtay hubkii ugu badnaa oo la sheegay in lagu qabtay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale Dooble. waxaana hubkan la sheegay in loogu talagalay in lagu qalqalgeliyo deegaanada amniga ah ee xilligan Jubbaland ay ka arrimiso. laamaha ammaanka ee Jubbaland oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inay ku raajoogaan xubno kale oo doonaya in ay iska horimaad ay ka bilaabaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana doonaya in weerar ay ka fuliyaan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalada Dooble. waxaana sidoo kale Jubbaland ay sheegtay in heegan buuxa la geliyay ciidamada ammaanka ee Jubbaland. Jubbaland ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana sidoo kale la soo warinayaa in xubnaha looga shakisan yahay in madaxtooyada Soomaaliya ay gadaal ka riixayso xilligan lagu qabtay magaalada Kismaayo iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Jubbaland gaar ahaan magaalada Dooble. Jubbaland waxa ay sheegtay inay diyaarisay ciidamadii ugu badnaa ee ka hortagi lahaa falkan amni darrada ah xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay ka fuliso magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. waa sida ay hadal ku dhigeen maamulka Jubbaland. maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale eedeyn kulul waxay u jeediyeen madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya waxayna ku eedeeyeen in xilligan uu abaabulayo qalqalgelin amni iyo sidoo kale inuu doonayo inuu isku diro qabaa'ilka deegaanada Jubbaland. waa sida ay Jubbaland ay qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen. dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in uu sii horiyo xiisadda xilligan u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda federaalka. Jubbaland oo aad uga cabsi qabto in dagaal uu ka qarxo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale magaalada Dooble maadaama labadaas magaalo lagu qabtay rag la sheegay in ay xiriir la leeyihiin madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo la sheegay in qalqal amni ay ka sameeyeen rabeen magaalooyinka Kismaayo iyo Dooble. laamaha ammaanka ayaa qabtay hubkii ugu badnaa oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo ammaanka magaalada Kismaayo oo xilligan uu ku sugan yahay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe oo aad u faahsan shaxda dowladda federaalka ayaa markan bilaabay howlgal ka dhan ah kuwa doonaya inay qalqalgeliyaan amniga magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka xilligan ay gacanta ku hayaan maamulka Jubbaland. Maxamuud Sayid Aadan ayaa warar afka ah wuxuu ku qaaday dowladdu uu xilligan hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu sheegay in hogaamiye kooxeejo xilligan dalka ay la wareegeen isla markaana qalqalgelin amni ay ka sameeyaan deegaanada Jubbaland.
waa sida uu hadalka u dhigay maxamuud sayid aadan. maxamuud sayid aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay ka hortagi doonaan cid walba oo doonaysa inay qalqalgeliso ammaanka deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale gobolka Gado oo isagu xilligan uu ku sugan yahay. Jubbaland oo magaalooyin badan oo gacanta ku haysay ayaa markan ay dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegtay, waxaana kamid ah magaalooyinka xilligan ay dowladda federaalka ay la wareegtay magaalada Beled Xaawo, Garbaharey, Baardheere iyo magaalooyin kale. markan dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in la wareegto degmada Luuq ee gobolka Gado oo xilligan gacanta ay ku hayaan maamulka Jubbaland. wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku sugan degmada Garbaharey ee gobolka Gado ayaa waxa uu sheegay in dhawaan ay qorsheynayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka qabtaan magaalada Kismaayo iyo 7 kamid ah deegaanada Jubbaland, taasi oo loo baahan yahay yiri in xilligan loo diyaar garoobo. waxaa la ogeyn sida magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland una fadhiyo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay dowladda siyaasad ahaan ay isku hayaan sida ugu suurtagali karto in doorasho laga qabto ama wax dhaqdhaqaaqi ah arrimahaas la xiriira ay dowladda federaalka halkaas ay ka samayso. waxa uu sidoo kale wasiirku uu sheegay in dowladda federaalka ay isku diyaarinayso in ay markan Kismaayo ay qabato isla markaana doorasho ay ka qabato. sidoo kalena waxa uu tilmaamay in xilligan ay qorsheynayaan in doorasho ay ka qabtaan deegaanada gobolka Gado oo qayb ka mid ah xilligan dowladda federaalku ay la wareegtay. dhinaca kale Axmed Maxamed Cumar, wasiirka dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu eedeeyay inuu si gaar ah uu qayb ugu yahay xayiraadda xilligan la saaray garoonka diyaaradaha degmada Doolow ee gobolka Gado. war qoraal oo ka soo baxay Jubbaland waxaa lagu sheegay in Axmed Maxamed Cumar, wasiirka dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uu si cad xayiraad u saaray garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ee gobolka Gado, isagoo ku faraxsan dhibaatada dadka rayidka ah xilligan ay wajahayaan. waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri nasiib darrada ugu weyn isaga maanta haysata waxa ay tahay in dadka ay saameysay xayiraadda diyaaradaha uu ka mid yahay aabihii isaga dhalay oo lagu magacaabo Maxamed Cumar, waliba uu ku xanuunsan yahay degmada Doolow. qoraalka ayaa sidoo kale waxa lagu yiri ninka nixi waayay aabihii isaga dhalay miyaa ka naxaya bulshada kale. caqabadaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed haysto ay ka mid yihiin, waxaana Jubbaland ay sheegtay in isku diyaarinayso ka hortagga qorshaha xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada Jubbaland. la arki doone halka ay ku dambeyn doonto khilaafka xilligan si xoogeysanaya u dhaxeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, maadaama gacan ku hinta xilligan la isku hayo gobolka Gado, iyadoona sidoo kale Jubbaland ay gacanta ku dhigtay rag doonayay inay qaraxyo iyo sidoo kale dagaal ay ka horiyaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.